Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay dhacdaa bariga fog ee qaaradda Afrika, taasoo u muuqaal qaabka ay u samaysan tahay geeska weysha. Sidaa daraaddeed waxaa loogu magac daray geeska Afrika. Waxa uu gaarayaa badka dalka Soomaaliya 637,657 kiiloomitir iskuweer ah. Waxaa biyo ah 1.6% badka guud ee dalka. Sidoo kale waxay Soomaaliya leedahay xuduud bari ah oo dhererkeedu gaarayo 2,340 kiiloomitir oo kala barta dhammaan Jabuuti masaafo dhan 58 kiiloomitir, Itoobiya masaafo dhan 1,600 kiiloomitir iyo Kenya masaafo dhan 682 kiiloomitir. Sidaa daraaddeed Soomaaliya waxay leedahay qayb dhererkeedu gaarayo 3,333 kiiloomitir. Dhulbadeedka Soomaaliya wuxuu gaarayaa ilaa 200 oo mayl. Soomaaliya waxay ka kooban tahay 18 gobol. Waxaa mara Soomaaliya laba webi oo kala ah Jubba iyo Shabeelle. Caasimadda guud ee dalka waa Muqdisho, waana halka looga taliyo waddanka ama looga arrimiyo. Dhulka Soomaaliya wuxuu ahaa mid dadku ay degan yihiin in ka badan 10,000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Waqtigaasoo dadku intooda badan ahaayeen doorgaleen dhaqda beeraha iyo xoolaha. Sidaasoo ay tahay waxaa soo ifbaxayay ilbaaxnimo tartiib isku soo taraysay, oo waxaa la sheegay in dadkaasi ay ahaayeen ama ay lahaayeen xiriiryo ganacsi iyo weliba cilaaqaad xog dheer oo ku salaysan maamul iyo horumar. Dhulka Soomaaliya wuxuu weligiisba ahaa xarun dhexe oo maamusha ganacsiga qaybo badan oo dunida ka mid ah. Intaas waxaa dheer, waxaa deegaanka Soomaalidu ahaa mid wax soo saar leh xagga beeraha iyo xoolaha iyo kheyraad kale oo dunida inteeda kale ay ka faa'iideystaan. Soomaaliya waxay xidhiidh la lahayd boqortooyadii Faraaciyiinta waqti imika laga joogo ilaa 3,000 oo sano ka hor. Soomaaliya waxaa ka jiray dagaallo badan oo u dhexeeyay ciidankii gumeystaha iyo ciidankii daraawiishta. Ugu dambeyntii Soomaaliya waxay xornimada qaadatay sanadii 1960, waxayna ka qaadatay gumeystayaashii kala ahaa Ingiriiska iyo Talyaaniga. Talyaanigu waxa uu gumeysan jiray gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya, halka Ingiriisku uu gumeysan jiray gobollada waqooyi. Calanka Soomaaliya waa calan buluug ah, dhexdiisa uga taal xidig caddaan ah. Madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya wuxuu ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan. Dhanka bulshada, waxa uu gaarayaa dadka Soomaaliya ku nool 9 milyan oo qof, waana tirakoob ay samaysay dowladdii kacaanka 1975. Waxaa kale oo jira tirakoob soo baxay 2015 kaasoo qiyaas ah oo ay soo bandhigtay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, waxaana lagu sheegay inuu gaarayo cadadka guud ee dadka Soomaaliyeed 12 milyan. Diinta shacabka Soomaaliyeed dhammaantood waxay haystaan diinta Islaamka, badankood waa Sunno kuwaas oo haysta madhabka Shaaficiyada. Luqadda dadka Soomaaliyeed. Af Soomaaligu waa luqadda rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana u kala baxaa Maay iyo Maxaatiri. Waa mid ka mid ah afafka Kushiitiga. Kuwa ugu dhow afka Soomaaliga waa afka Cafarta, kaasoo looga hadlo Itoobiya, Eritrea iyo Djibouti. Dhaqaalaha Soomaaliya. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha iyo dalagga beeraha ka soo go'a. Haddii ay tahay markaagii ugu horreysay oo aad soo baqto janaalka, fadlan walaal ha ilaawin inaad subscribe tira si aad u hesho fiidiyoada kale insha Allah.